وكوريسان والله وكوريسان كيس كان معنا أنت وسومري أنا فريدي سايل أنا حاسس كرا أثير ما يفرقين هذه فرقين سبيني في هل الدليل هلا ما هاي كلنا wanaagsan daawadayaal waxaan kala soo hadlaynaa hoolka maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir waxa ay dadweynaha iyo dhinacyada dacwadu ka dhaxaysa inta badan inay goobjoog u noqdaan maanta xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee racfaanka ay ku ridi doonto eedeysana Sayid Cali Macalin Daa'uud oo maalmihii la soo dhaafay halkan ay ka socotay dhageysiga kiiskiisa waxaa loo madayahay maanta in maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ay xukun kama dambaysi ka soo saarto kiiskan oo muddo ka socday hay'adaha garsoorka gaar ahaan maxkamadaha racfaanka iyo tan gobolka Banaadir oo horay dil toogasho ugu soo xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysan inuu horay u gubay xaaskiisii Luul Cabdulcasiis Maxamed 26 bishii January laakiin 2 Febraayo u geeriyootay dhibaatada ka soo gaartay dabkii gaaray marxuumadda waxaanu halkan ku sugaynaa oo ay qareennada dhinacyada kala duwan ee maxkamadda dacwadu ka dhaxayso iyo sidoo kale ehelka Sayid Cali iyo ehelka marxuumadda ay diyaar u yihiin inay goobjoog u noqdaan dhageysiga go'aanka kama dambaysta ee maxkamadda ay ka soo saari doonto kiiskan iyadoo halkan ay ku sugan yihiin ehelada Luul Cabdulcasiis iyo sidoo kale ehelka eedeysana Sayid Cali Macalin Daa'uud oo horay maxkamadda gobolka Banaadir ay ugu soo xukuntay dil toogasho iyadoo maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo 3 fadhi dhageysatay kiiskiisa ay maanta soo saari doonto go'aanka kama dambaysta ah inkastoo aan la ogeyn waxa uu noqon doono haddana dhinacyada gaar ahaan ehelka eedeysanaha iyo ehelka marxuumadda intuba waxay rajeynayaan inuu soo bixi doono xukun dhankooda jira waxay nala wadaageen qaar kamid ah ehelada Sayid Cali Macalin Daa'uud oo aanu la kulanay in ay rajeynayaan inay helaan xukun cadaalada isla markaana wiilkooda aanu maxkamaddu ku raaci doonin xukunkii ay ku tilmaameen sharci darrada ee maxkamadda gobolka Banaadir ee hore ugu soo riday Sayid Cali Macalin Daa'uud sidoo kale waxa markaasi ehelka gabadha ay dhowr jeer ku celceliyeen in maxkamadda ay ka sugayaan in ay xukun cadaalada oo kama dambaysi ridi doonto sugaya maanta inay helaan xukun ay ku qancaan oo ay gabadheeda cadaalad u heli karaan sidoo kale waxa iyaguna ku sugan halkan ehelada Sayid Cali Macalin Daa'uud oo iyagu diyaar u ah inay markaasi la falgalaan xukunka maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ay soo saari doonto waxa markaasi halkan ku sugan bahda warbaahinta oo iyagu qayb ka ah tibinta kiiskan oo dadweynuhu ay si toos uga daawanayeen aaladaha kala duwan ee markaasi warbaahinta oo ay live u tabinayeen iyadoo kiiskan oo ahaa kiis daahfuran oo maxkamadaha ay si toos u qaadayeen kiiskan markii uu dhacay 26 bishii January waxa uu ka mid noqday kiisaska saameynta weyn ku yeeshay bulshada ee markaasi dadku ay aad uga falceliyeen iyadoo markaasi dadku ay ku tilmaameen kiiskan oo ahaa mid aad u xiiso leh oo markaasi dadku ay saameyn ballaaran ku yeeshay wariyaasha madax bannaan ayaa ka mid ahaa dadkii qaybta ka ahaa kiiskan iyo tabintiisa iyadoo markaas dhinacyada kala duwan ee dacwadu ka dhaxaysana ay diyaar u ahaayeen mar walba inay la socdaan natiijada kama dambaysta ee kiiskan oo qof walba uu markaasi rajadiisu tahay in asaga ay raaci doonto natiijada ugu dambaysa oo cadaaladda inkastoo maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ay maalmihii la soo dhaafay waday turxaan bixin qareennada eedeysana Sayid Cali Macalin Daa'uud ee maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir la wadaagay racfaankooda ay ku diidayaan maxkamadda gobolka Banaadir xukunkii ay ku riday muukilkooda iyaga oo ku tilmaamay inuu ahaa mid aan shariicada islaamka sinna u waafaqsanayn oo markaasi ay aad uga soo horjeesteen
weli waxaad nagala socotaan telefishinka Soomaali Cable iyo maxkamadda rafaan gobolka Banaadir iyo kiiska eedeysan Sayid Cali Macalin Daawud oo maantay ay tahay gaaridda go'aanka ay ka sugayaan dadweynaha iyo sidoo kale dhinacyada ay dacwadu ka dhaxayso ee ehelka Sayid Cali Macalin Daawud iyo sidoo kale ehelka marxuum Nuur Cabdi Jaziira sida u jeedaan hadda waxa hulka ku sugan oo diyaara sugayana go'aanka maxkamadda ehelada marxuum Nuur Cabdi Jaziira iyadoo sidoo kale ehelada Sayid Cali Macalin Daawud ay markaasi halkan ay ku sugan yihiin oo iyaguna ay maan sugayaan in uu soo bixi doono xukun maxkamadeed oo dhankooda raacsan iyaga oo hore u sheegay wiilkooda uusan markaasi dhibaato u geysan gabadhaasi sidoo kale qareennada u doodaya ayaa ku andacooday in Nuur Cabdi aysan u dhiman dabkii u geystay Sayid Cali Macalin Daawud inkastoo eedeysanuhu uu maxkamadda ka hor qirtay inkastoo marka waxaa galabtayga taagan nuur oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed waxaan wax ka weydiin doonaa go'aanka la wada sugaayo iyo sidoo kale xukunka ama go'aanka ay qaadan doonto maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo noqon karo nuur soo maxkamadda racfaanka ee gobolka joognaa waxaa la wada sugayaa in maxkamadda racfaanka ku dhawaaqdo go'aanka ugu dambaysta ah kiiskii nuur fadhi ay ka soo yeelatay Sayid Cali Macalin Daawud oo aan ku eedeysan inuu xaaskiisii guray bal maxaa la fili karaa waa mastahay inkastoo horta wariyaashu aysan si toos ula falgeli karin
رأيي بالزي الوقت هذا وضيع ولي واحد نقل سعوتان تلفزيون كالصومالي كيبل waxaan ku sugannahay hoolka maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo ay dadweynaha hoolka ku sugan iyo warbaahinta inta sugayaan aanka ay hoolka maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ka soo saari doonaan kiiska Sayid Cali oo saddex fadhi oo halkan ka dhacay qareennada iyo xabsi xiraarintuba ku soo gudbinayeen dacwadda iyo faylalka ay hayeen ay ku difaacayeen raysanaha iyo sidoo kale libanayaasha oo ah ehelka Nuur Cabdilcaziz waxa ila joogo Xasan Kaafi Xaaji Maxamed oo kamid ah guriyaasha madaxa banaan ee magaalada Muqdisho ka shaqeeya isla markaana kiiskan si weyn loo falgalay tan iyo markii uu dhacay oo hadda laga joogo muddo ka badan 4 bilood Xasan Kaafi aan ku weydiin doonaa kiiskan sida uu bulshada u saameeyay iyo warbaahintu qaybta ay ka lahayd in uu heerkan soo gaaro Xasan Kaafi ku soo dhaweeyay Soomaaliya aad baad u mahadsantahay Cabdixafiid bal sidoo ku soo bilaaway kiiskan hadii aan dadku u celino January kiiskan dabcan mar qura January ayaa lagu baraarugay in dhacdadii ugu xanuunka badneed Soomaaliya ka dhacday taasi oo ah nin dab qabadsiiyay xaaskiisa inkastoo dadku aysan sheegi karin hanaanka sida ay wax u dhaceen iyo qaabka uu ahaa laakiin sida ogaal maqalka iyo dadku ay maaragtay ku waramayeen waxa uu ahaa in nin xaaskiisa gubay magaalada Muqdisho oo ka baxsaday kadibna gacanta lagu soo dhigo laamaha amniga ay gacanta ku soo dhigeen waxa uu soo jiitamaba maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la iskugu yimid dhowr fadhiyo maxkamadaasi ay ka qaadatay ugu dambeyntii waxay ku xukuntay sidaanu ka warqabnay xukun dib toogasho sidoo u saameeyay dareenka bulshada marka la eego si weyn buu u saameeyay qof walba oo Soomaali ah dal iyo dibad ha joogo dabcan waxaad u malaysaa in xog ogaal rasmi ah uu ka yahay xaaladda kiiskan iyo marxaladii kala duwanaa uu soo maray kiiskanna marka la eego waa kiiskii ugu horeeyay Soomaaliya ka dhaca dabcan dadkuna ay la anfariireen ama la amakaageen maadaama kiiskan uu ahaa kiis gubid la xiriira laguna eedeynayo in uu ka dambeeyay eedeysana Sayid Cali Macalin Daawud oo dhowr jeer ka soo muuqday maxkamadda gobolka Banaadir iyo sidoo kale saddexdii fadhiyo ugu dambeysay maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir dabcan hoolka sidaad ka warqabtaba ehelada qaybooda kala duwan ayaa ku sugan oo labada dhinac saadaalinta iyo rajada iyo waxyaabaha la eegayana waxay tahay sida wax socda sidee warbaahintu door noocay ku leedahay kiiska warbaahintu doorka ugu weyn ay ka qaadatay marka la eego sababtoo ah laga soo bilaabo January ilaa maanta la taagan yahay oo bishii shanaad dabcan la taagan yahay oo 15 May la maraya ilaa intaas warbaahintu badankeed kama aysan aamusin xaalka sidoo noqon doono iyo qaabka maxkamadan ay u soconayso iyo sida dabcan sida Cali arintiisa loo marayo marka waxaad moodaa
qaladaad badan ay gashay kiiska ay tabinayso warbaahintu dabcan waxaa la dhihi karaa door lixaad leh ayay ka qaadatay qaabka kiiskan uu noqon karo iyo sida maaragtay loola falgeli karo bulshadana loo ogeysiin karo hadba halka ay wax marayaan way iska jiri karaan qaladaad way dhici karaan oo bini'aadamku qaladaad wuu ka dhici karaa laakiin anigu ma aaminsani in warbaahintu qalad ay gashay laakiin waxaan ogahay oo keliya in warbaahintu ay qaadanaysay doorkeeda ku aadan kiiskan waa mahadsantahay عدالة إلهي هلاك بقى الله هلاك بقى نفتي بيه وعاد كنت دارنا عبسي الله سبحانه وتعالى لا كان هلاك الحق صار حق السلام عليكم شوف waatahay daawadayaal waxaan joognaa maxkamadda gobolka banaadir aabe cabdicasiis ayaan la joognaa aabe soo dhow waa dareenkaa يا waa sida xaalada maanta noo waran maxaa sugaysaa حالك نورمال واي وحن سوق عدالة إلهك سوقنا حق على إلهي دتك لو هكذا حق صار حدنا لو يحن maxkamadda racfaanka oo kiiska ka socday ها sidoo u saameeyay kiiska markii والله هذا ما حد يقول ده بس شو المدعي wuxuu ahaa aabaha Nuur Cabdicasiis Siiro oo markaas warbaahinta la wadaagay dareenkiisa oo markaas ka hadlayay waxaa la sugayaa daawadayaal kiiska iyo xukunka ay maxkamadda racfaan gobolka banaadir ka qaadan doonto iyadoo guddoonka maxkamadda racfaan gobolka banaadir la filayo dhawaan inuu soo gaaro guddoonka maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ehelada marxuumadda iyo sidoo kale ehelka Said Cali ayaa halkan diyaar ku ah iyadoo markaasi aabaha dhalay Nuur Cabdicasiis oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in markaasi ay sugayaan maanta in ay heli doonaan cadaalad isla markaana gabadhooda ay maxkamadda u garsoori doonto daqiiqado kooban ayaa ka harsan xilligii uu soo geli lahaa guddoonka maxkamadda gobolka ay ka socoto diyaargarowga ogaanshaha halkuu ku dambayn doono xukunka Said Cali Macalin شو waa dhici kartaa wax dhici kara waa procedure-ka way وما سنتي ساعة ليش أخذوا لنا تبسينا وما تبعنا ما له رسمة تيجي في الفرصة استوديو نحن ما يجوا شيء وقتوا ما سنتي صراحة شو عيل أنا ما سنتي هيك كبح أخذك بحدك ورماش حكونا وما تبعنا حقك تام استوديو ما ورئيس مجرى تعد قد بقى ورئيس لايف كان جودية سخاو عدي كله وحام سيدا نبصنا
وقت داوديال ولي waxaad daawanaysaan telefishinka Soomaali Cable iyo kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo maanta ay dadweynaha ku sugan hoolka maxkamadda rafaan gobolka Banaadir ay sugayaan xukunka madambaysta ah ee ku dhici doona Sayid Cali iyadoo ay aan sugayno markaasi guddoonka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir oo soo gaari doona qadaha soo-aadan hoolka maxkamadda isla markaana ku dhawaaqi doona kiiska kama dambeynta xukunka Sayid Cali oo horey maxkamadda gobolka Banaadir xukunka ay ku riday dib u toogashada ahaay rafaanka la soo qaatay eelka Sayid Cali iyo eelka marxuumada Luul Cabdi Casiis iyo qareenada u doodaya ayaa halkan ku sugan oo markaas sugaya sida uu noqon doono xukunka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ehelada dhinacyada waxa ay markaas inoo sheegeen in ay diyaar yihiin markaasi ay wajahaan go'aanka maxkamadda ay soo saari doonto eelka Sayid Cali waxay inoo sheegeen in ay sugayaan xukun ka duwan kii hore ugu dhacay sidoo kale qareenka Sayid Cali waxa uu warbaahinta la wadaagay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir ay ku riday muwakkilkiisa mid ka duwan maanta in uu sugayo taasina ay qeexi doonto halka ku dambeyn doono kiiska Sayid Cali Macalin Daawud hore wuxuu sheegay qareenka mar uu warbaahinta la hadlayay in haddii ay maxkamaddu ku raacdo xukunka maxkamaddii ka horeysay ay qaadi doonaan tallaabo kale oo markaasi u danaynaysa muwakkilkooda mar ay warbaahinta weydiisay haddii ay jirto tallaabo ay qaadi karaan ama maxkamad kale oo isu gudbi karaan wuxuu sheegay in maxkamadda sare haddii ay u baahdaan oo ay la noqoto in ay aadaan ay doonaan inkastoo maxkamadda sare aysan hadda dalka ka jirin waxaa halkan ku sugan dhammaan ehelada marxuumka iyo marxuumadda iyo sidoo kale ehelka eedaysanaha sidoo kale bannaanka waxaa ku sugan dadweyne u diyaargaroobaya inay markaasi maantay la falgalaan xukunka kama dambaysta ah ee maxkamaddu ay soo saari doonto gudoomiyaha maxkamadda rafaan gobolka Banaadir ayaa markaasi hadda waxaa soo geliyay Sayid Cali Macalin Daawud oo ah eedaysanaha iyadoo markaasi la sugayo xukunka ay maxkamaddu maanta ay ku ridi doonto waxaa la sugayaa markaan wixii ka dambeeya gudoomiyaha iyo gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir oo markaasi la sugayo xukunka kama dambaysta ah maxkamadda soo baxday waa Sayid Cali Macalin Daawud oo u diyaargaroobaya maanta xukunka ay maxkamadda rafaanka ku ridi doonto wajigiisa dabcan farxad ayaa ka muuqata laakiin lama ogaan karo xukun ku dhici doona Sayid Cali maadaama uu gabagaba yahay dhageysiga kiiskiisa isla markaana maanta maxkamadda laga sugayo xukunka kama dambaysta ah ee lagu ridi doono Sayid Cali ayaa ku eedeysay inuu gubay xaaskiisii Luul oo lahayd uur dhowr toddobaad isla markaana haysatay 6 carruur oo ay agoonnimo ku korinaysay eheladiisa ayaa waxay aaminsan in wiilkooda uusan dilin gabadhooda taasi oo ka dhigan inuusan dambiile ahayn sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir ayaa horey dil toogasho ugu soo xukuntay Sayid Cali weli waxaa daawanaysaan daawadayaal telefishinka Soomaali Cable waxaanu sugaynaa guddoonka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir oo la sugayo in ay soo saaraan xukunka madambaysta ah ee Sayid Cali Macalin Daawud ku dhici doona qareenka eedaysanaha ehelada marxuumadda ehelka eedaysana Sayid Cali iyo sidoo kale eedaysanaha ayaa hoolka maxkamadda ku sugan waxaana loo diyaargaroobayaa in uu soo galo gudoomiyaha
maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ee howlka maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda ayaa soo galay. السلام عليكم دورنimo wanaagsan maxkamaddu waa inoo furan tahay fadhiis intaanan guda gelin ku dhawaaqitaanka waxaan baraarujinaynaa arrimaha soo socda ugu horeyn marka ay ku dhawaaqistu dhamaato howlwadeenada ka socdo warbaahinta waxaa la ogeysiinayaa in howlka dhexdiisa aan waxba lagu duubi karin barxadda maxkamadana aan lagu duubi karin qof inay wareysato rabto oo waxayna duubato rabto bannaankaasi la tegaysaa midda labaad dadka ku sugan howlka dacwadda ee u yimiday in ay qayb ka noqdaan ama dhegaystaan ku dhawaaqista maxkamaddu maanta ay sameynayso ee xukunka laga soo saaray galka sumadiisu tahay 27/24/24 waxay maxkamaddu ku baraarujinaysaa in wax falcelin ah in ay sameeyaan ayna maxkamaddu ogolayn ciddii markii maxkamaddu xukunka ku dhawaaqda la falgasha ee falcelin ka samaysa buuq iyo waxyaabo aanan u qalmin maqaamka maxkamadda in maxkamaddu ay la tiigsanayso sharciga tilaabo sharciga waafaqsanna laga qaadayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمهورية فدرالك صوماليا محكمة رفعانك قبل كبنادر قيبتا عقابتا واحدة تشيكا ما أنت أو أي تاريخ دو تهي شاني طبانكي بيش الشنات لبدو كون أفري لباتنكا محكمة وككوبان قرصورياشا كلاء عبد الوهاب أحمد علي برهان محمد علي يعني جو سعيد علي محمد سمر كان القدومين هي محكمة دان كاليانا أوكي هاي لبان محمد محمود فردقان ما أنت عنو فردينو محكمة دو وحاوي كل واقعي ساعة حكم كا أي كسو صارتي قل دعوديت كا نمبركيسو يهي لباتن يتضبو لباتن أفري لباتن وحنا قوب جوغ فردقان حرلاليها كومتليو دعودان حفيزك حرلاليها قد هذا الميكروفون كاستعمال magacaygu waa Yaxye Maxamuud Saciid waxa ku matalaya xafiiska xiraaliyada guud ee qaranka dacwadan maanta loo fadhiyo maxkamadda waa maasanta waxa isna goob joog eedeysanay Sayid Cali Macalin Daawud eedeysanaha waxaa iyana goob joog oo qareen waa eedeysanaha abukaate cali xalane iska fadhiiso maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcaanka ee eedeysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyay dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xiraalyaha guud si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta maxkamaddu haddii ay dib ugu noqotay qoraaladii ay soo gudbiyeen iyo doodii ay soo jeediyeen labada dhinac aragtayna dhammaan dukumentiyada ku jira galalka maxkamadda gobolka iyo rafcaanka darastayna cadeymaha dhinacyada waxa uu caddaatay sida soo socota in si loo caddeeyo eedeysanuhu inuu galay falka ku xusan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta ay qasab tahay in la sugo si aanu ku jirin shaki maangal tiirarka uu ku taagan yahay qodobka oo sidan soo socota in eedeysanuhu geystay fal 2 inay jirto dhimasho 3 in falka eedeysanuhu geystay uu sababay dhimashada dhibanaha 4 in eedeysanuhu uu qasday dhimashada dhibanaha inaanay wax dooda ka taagnayn in eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud 26 bishii koobaad 2024 sameeyay fal gubista qol kamid guri uu deganaa kuna yaalay degmada Dharkeenley
isagoo ku sheegay qiraal uu maxkamadda gobolka ka horsameeyey 25 bishii 2024 inuu isagu gubay guriga in xafiiska xeerlaaliyaha guud uu maxkamadda usoo bandhigay muuqaal laga dheehday qol ka mid ah guriga falku ka dhacay oo gubtay taas oo caddayn u ah falka gubashada qol ka mid ah guriga isla markaana uu waafaqsan yahay qiraalka uu sameeyey eedeysano inaanay doodi ka taagnayn in luul cabdicasiis allah u naxariistay ahayd qof nool oo degan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeenley una dhexday eedeysana sayid cali iyo aabbaha dhalay marxuumadana ay isla ogol yihiin in luul ahayd qof nool ka hor dhacdada keentay geerideeda taas oo si dhab ah inoogu xaqiijinaysa in marxuumaddu ahayd qof nool ka hor dhacdada dhimashada keentay in warqad ku taariikhaysan 2 bishii 2024 kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfer lagu cadeeyay in luul geeriyootay 2 bishii 2024 abbaaro 6:50 daqiiqo ee subaxnimo kuna geeriyootay isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista ee muqdisho in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay dhaqaatiir ta u fidisay gargaarka caafimaad luul allah u naxariistee oo gacanta ku hayay kiiskeeda ay maxkamadda la wadaageen in luul isbitaalka la keenay taariikhdu markay ahayd 27 bishii 1 2024 abbaaro 1 subaxnimo ama 7 saac oo habeenimo iyada oo guban in warbixin tirsigeedu yahay 41 kuna taariikhaysan 28 bishii 1 2024 kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfer lagu cadeeyay in 90% luul jirkeedu gubtay sababta gubashada keentana ay tahay flame gas in warbixin mid ka mid ah dhaqaatiirta maxkamaddu wareysatay uu sheegay in 90% luul jirkeedu gubtay gubashaduna gaartay lakabka saddexaad ee maqaarka hypodermis isaga oo xusay in 10% badbaaday ay tahay labadooda lugood qaybtooda hoose oo midiiba 4% la xisaabiyo kilkisha midig iyo awrada oo midkiiba 1% la xisaabiyo in warqadda shahaadada dhimashada ee ka soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfer lagu cadeeyay in luul cabdicasiis maxamed geeriyootay 2 bishii 2024 abbaaro 6:50 daqiiqo ee subaxnimo sababta geerida keentana ay tahay dhaawac ka dhashay dab keenay gubniin halis ah in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka Digfer kuna takhasusay suuxinta iyo la tacaalida xaaladaha adag ahna mid ka mid ah dhaqaatiirtii gacanta ku hayay xaaladda luul maxkamadda la wadaagay in sababta keentay dhimashada luul ay tahay dab jirkeeda gaaray isagoo raaciyay in marka la eego dabka jirkeeda gaaray rajada badbaadadu ay ahayd mid ka yar 10%. in arrimahan soo xusnay ay si cad u muujinayaan in sababta dhimashada luul ay tahay dabka eedeysanuhu ku qabtay guriga ay ku noolayd in eedeysanuhu qirsan yahay in isaga iyo luul muran dhex maray kadibna ay tiri waxaan gursanayaa nin kale ee fur isaguna go'aansaday inuu gubo alaabtiisa xilliga arrimahani dhacayaan ay ahayd habeen dabeetana baxay soona iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah guriga ay ku wada noolaayeen isaga iyo luul kadibna jantisiigar ku shiday balse uu diiday in falka gubashada luul uu ku yimid si kas ah isaga oo xusay in iyadu gashay qolka gubtay kadibna uu badbaadiyay in marka la eego muranka dhex maray eedeysanaha iyo luul xilliga muranku dhacay oo ah xilli habeen ah eedeysanuhu inuu baxay soo iibsaday shidaal dabeetana ku shubay mid ka mid ah qolalka guriga ay ku wada noolaayeen kuna dhajiyay jantisiigar ay si aanu shaki ku jirin u muuqanayso in eedeysanuhu falka gubista ah ku fakaray qorsheeyay dabeetana baxay tagay meel shidaal lagu iibiyo soo iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah meel dad ku nool yihiin kuna dhajiyay jantisiigar in eedeysanaha falkaas marka uu sameynayay miirkiisu joogay
ogayna in dab haddii lagu shido guri dad ku nool yihiin iyada oo weliba la adeegsanayo shidaal oo caadi ahaan siyaadiya gubashada natiijada ka dhalan kartaahi ay tahay in waxyeello gaari karto dhimasho ay soo gaari karto dadka goobtaasi ku nool in adeegsanuhu uu lahaa gaari ku jiray garaash ku dhow goobta falku ka dhacay sida uu sheegay markii falku dhacayna uu ka baxsaday goobta isagoo adeegsaday gaarigiisa haddii aanu falka si kas ah ugu geysan xaaskiisa si ku talagal ahna aanay u guban caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay falka caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay waa inuu u fidiyo gargaar isla markaana gaarsiiyo goobta ugu dhow ay ka heli karto gargaar caafimaad in eedeysanuhu aanu samaynin sidaas ee uu baxsaday isagoo adeegsaday gaarigiisa dabeetana aaday Galgaduud isagoo og in xaaskiisa dhaawac adag soo gaaray caqliga saliimka ahna uu keenayay in gaariga uu ku baxsaday ku qaado gabadha gargaarna u fidiyo sida ay wax u dhaceen la wadaago ehladiisa iyo ehladeeda iyo hay'adaha ammaanka sababtoo ah ma jiri karto wax ku qasbayo baxsasho haddii aanu u geysan falka si ula kaca in dooda eedeysanaha ee ah in luul iyadu gashay qolka oo gubanaya ay beeninayso warbixintii uu mid ka mid ah dhaqaatiirtii luul u fidiyay gargaarka caafimaad ee ku takhasusay qalliinka guud maxkamadda u sheegay luul in aanay ka guban labada lugood qaybahooda hoose sidaas la mid ahna sawir maxkamadda lala wadaagay uu taageerayay hadalka doctorka ah in luul aanay ka guban lugaha waxaana lugaheeda saarnaa maqaar iyada oo la arki karay cilaan u saarnay lugaheeda in haddii luul soo gashay qol gubanaya oo shidaal lagu shubay meesha ugu horeysa ay ka guban lahayd noqon lahayd lugaha oo uu qabsan lahaa dabka holcayay oo ee ka dhashay shidaalka dhulka lagu shubay taasoo meesha ka saaraysa dooda eedeysanaha ee ah in iyadu qolka gashay in arrimahan oo dhan muujinayaan in eedeysanuhu si kasa u sameeyay falka ah gubidda guri falkani ay ka dhalatay natiijaha dhimashada luul marka lagu sameeyo fal ah gubis qol ku yaalo guri lagu nool yahay natiijada laga filan karo falkaasina ay tahay geerida qofka ku sugan qolka dabka lagu shiday si waafaqsan qodobka 24aad xarafkiisa ee xeerka ciqaabta in qaranada difaaca eedeysanaha ku doodeen in maxkamadda gobolka dhageysatay marqaatiyaal xafiiska xeeraryaha guud keenay kuna xustay bogga 18aad ee xukunkeeda in marqaatiyaashii maxkamaddu hor yimid marag furkooda aanu ahayn mid lagu dhisi karo xukun maxkamadeed in cadeymaha wax lagu sugo ee sharcigu jideeyay ay yihiin qiraal marqaati iyo qaraa'in maxkamadda gobolkana ay xukunkeeda u adeegsatay qiraalka eedeysanaha iyo qaraa'in ay kala soo dhex baxday dhacdada in sida jamhuurka fuqahada muslimiintu qabaan qariinadu tahay daliil la cuskan karo garsoorkuna uu ahkaamtiisa ku dhisi karo arrinkaasna ay sal u tahay kitaabka quraanka sunnada nabiga iyo ijmaaca muslimiinta in aayadda 18aad ee suuratul yuusuf oo allah subhanahu wa ta'ala kaga waramayo in markii nabi yacquub alayhi salaam ee wiilashiisu u keeneen qamiiskii nabi yuusuf alayhi salaam oo dhiig been ah ay soo mariyeen uu ugu jawaabay waxaad wadaan waa been oo naftiina ayaa idin qurxisay iyadoo culimada tafsiirku ay sheegeen in habka nabi yacquub ku gartay in dhiigaasi uu been yahay ay tahay inuu arkay qamiiskii oo dhiig leh laakiin aan jexjexnayn uuna yiri wiilashiisii goorma waraabuhu caqli yeeshay oo wiilka kala baxay qamiiska isagoo aan dilaacinin iyadoo culimadu arrinkaasi ka daliishadeen in qariinadii dhiiga ee wiilashu daliishadeen uu nabi yacquub alayhi salaam ku buriyay qariino kale oo ka xoog badan oo ah in aan qamiisku jeexnayn taasoo daliil cad ah in qariinadu tahay xujo lana cuskan karo marka arrin laga go'aan gaarayo in aayadaha 26aad iyo 27aad ee suuratu yuusuf oo allah subhanahu wa ta'ala uu kaga waramay qofkii ka marag furay markii la masabiday nabi yuusuf alayhi salaam uu sheegay
in haddii qamiisku uu horay ka dilaacsan yahay uu isagu been sheegayo oo haweenaydu ay run sheegayso haddiise uu gadaal ka dilaacsan yahay ee haweenaydu been sheegayso oo nebi yuusuf calayhi salaam uu run sheegayo taasoo ka dhigan in lagu amray in boqorku uu fiiriyo qariinooyinka ka muuqda qamiiska ee kala cadaynaya in nebi yuusuf calayhi salaam uu haweenayda damcay ama in ay iyadu damacday arrintaas oo jamhuurta fuqahada muslimiintu u daliishadeen in ay cadaynayso xujoonnimada qariinada iyo inay tahay cadayn la cuskan karo oo garsoorku go'aankiisa ku dhisi karo in xadiiska uu wariyay Bukhari oo tirsigiisu yahay 3962 iyo Muslim oo tirsigiisu yahay 1800 nuxurkiisu ahaa in markii uu sheegtay mid kasto kamid ah labadii wiil ee ilma Cafra inuu isagu dilay Abu Jahl nabigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyay seeftiinu miyaad masaxdeen in ku jawaabeen maya ma aanan tirtirin kadibna uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu seefahoodii fiiriyay una yiri kan baadilay isagiina uu u xukumay furkii laga furtay Abu Jahl arrinkaas fuqahada muslimiintu waxa ay u cuskadeen in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qariinada wax ku xukumay sidaas darteedna ay garsooraha u bannaan tahay inuu ku go'aan gaaro qariinada hortiisa taala xukunkiisana uu ku dhiso in xadiis ay soo saareen Abu Daawud oo tirsigiisu yahay 4404 الترمذي أو ترسيجيس يهاي كون شن بقول سديتين أفر ابن ماجه أو ترسيجيس يهاي لبا كون شن بقول أفرتن يكو النسائي أو ترسيجيس يهاي كون شن بقول كنتن يلح ولما بدلنا أي صحيحين أو صحابي سعد ابن معاذ النبي عليه الصلاة والسلام أو جوب جوج كوجو آمية إن غير بنو قريدة قانجار كود الله قانجار نمدا lagu gartana saxaabadu ay sheegeen in ay ragooda ka fiirinayeen timaha hoose oo qof kasta oo timaha hoose leh lagu fulinayay xukunkaas dilka ah taasoo keentay in fuqahadu halkaas ka daliishadeen in saxaabadu cuskatay qariino iyo calaamado qofka ay ka muuqato oo qofka ka muuqda oo sheegaya in uu qaangaar yahay walow aan la hubin in uu gaaray da'dii qaangaarka taasina ay cadayn u tahay in go'aanka lagu dhisi karo qariino maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay ku go'aan gaarayeen in qowlka laga wariyay Umar iyo qayb kamid ah saxaabada uu ahaa inay xukumeen in haweeneyda aan la qabin ee guur hore soo martay loo rajmin karo haddii la arko iyada uur leh iyagoona cuskaday qariinada daahirka ah ee muuqata oo ah uurka oo cadayn muuqata u ah in ay sinaysatay maadaama uusan jirin nin qaba oo uurkan u yeeli kara waxaana isla arintan la qaba Imam Malik iyo madhabkiisa in ijmaaca ay soo guuriyeen fuqahada qaarkood sida Ibn Farhun kitaabkiisa Tafsiratul Hukam iyo Qurdubi kitaabkiisa Al-Jami' al-Ahkam al-Quran iyo Jassas kitaabkiisa Ahkam al-Quran iyo qeyrkoodba ay sheegeen in ay ijmaac tahay in wax lagu xukumi karo laguna go'aan gaari karo qaadan karo qariinada in aayada 179 ee suurada Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay in kuwa aqliga u saaxiibka ah qasaastu u tahay nolol in aayada 45 ee suuratul Maa'ida Allah subhanahu wa ta'ala ku xusay in alla jideeyay naftii nafdisha in loo dilo hadaba maxkamadu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galka sumadiisu ahayd 147 waxay ku heshay eedeysane Sayid Ali Macalin Daawud dambiga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dambiile Sayid Ali Macalin Daawud dil toogasho xukunkan cid aan ku qancin waxa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii shanaad 2024 waxa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka holka ku sugan qof kasta xafadiisa ha aado fadhigii maxkamadana halkaas ayuu noogu xiran yahay
wixii saxaafada banaanka wareysa iyo eedaana saxaafada